cabsida labaad ee naga hor joogtayna isbedelaan waxa weeyaan inuu qofku ka boqo fear of criticism ama horta ma waxa ka horeeya fear of change inuu qofku ka boqoba fear of failure inuu qofku ka boqo inuu fashilmo oo qofku aad uga cabsoodo inuu waxaan isku dayo indhiifkiisa iyo kadeedkiisa iyo halgankiisu inuu ku fashilmo oo ku baadilmo oo hadhow natiijada iyo cidhibta ka soo kordhaysa ay noqoto mid aan caqiibo lahayn oo mar walba qofku ka boqo armaad ku fashilantaa oo fashil ka baqaana it's what's holding us back waxa dib inooga xajinaynaan halkaan rabno gaadhno weyn marka ha ka baqin guuldarradu waa shaarkan ood xidhatay oo la dhaqaaqo suuqa la tagto kuu soo dhididood ku soo dhidido isgowabay iska tuur markaad dhow shaqada tagaysad meesha rabtay tagaysad asxaabta la soo baashaalayso simple shaar kale cusub xidho haddaanu shaarkaasi kaa isgowabinta ka cusub maad xidhateen ila shaarka hore xidhantee marka isbeddelku waxa weeyaan failine tan ku dhac tan ku fashilan waan ku fashilmay maanta laakiin dee anu waan fashilmay laakiin dee ma jiifsan dhulka waan kaco bolkaas ka dhaqaaji horaan u dhaqaaqay haddana waan kufay haddana horaan u dhaqaaqay dadka had iyo jeer guusha gaadha ee adduunkan maanta taariikhdoodii bayjadka dahabigaa ka gashay ma aha dee dad dariiqu ubax u yaalluuna dariiq toosan uun soo hay no maba dhacaysa nin guulaystay oo sheeko xumad iyo xanuun badan aanay soo marin aqbal markaa inaad fashilanto aqbalo ku raalli ahow inaad fashilanto markaad fashilantana ha isdhigane ka kac أنا ما فشل من دي 10 بان كبرت هره uga dhaqaaq ma fashil min dee 10 kalan ka bartay ha warkaaga sidaa u habeede marka waxa jirta ninkii loo oranay Albert ninkii Einstein ninkii waxaan u jeedaa ikhtiraacay light 15 ayaa waxa dhacday intuuna leydku u shidmin finally xaqii ugu dambeysay una soo gaaray ayuu wariyay ayaa ku wareystay qolkii uu ku sameeyay leyd markaas uu ku yiri صحيح سعودية صدق كونه شهر بمركز قصوين كويك اللي بدلين قارب يرها 9999 قارب يرها 99 times لكن this one أنا هيو حوالي 3000 وحكوا أكسد هذا الكيس أود جيك هذا الكيس ما كوسا قاعدنا واسير هذا بدن كينو هذول اللي هيدين قف جوش الطمعة قف مال رادين قف كده جوش بدن يا مركز إنه فشل ما يكون تاي ما فشل منه إنه فشل ما يكون تاي things are not as they seem shiyada iyo arrimuhu ma aha sidaad moodaysaabo different wax ka hooseeya jira waxa jira dadaalan bixiyay oo natiijadii ka soo baxday aanay dadku arkayn laakiin niyadeedu ku qabowday ku degtay ku faraxday ku raali ahaatay and that's what I'm looking for waxaan raadinayaa waa inta inaan ku farxan nolosha inaan ku raaxaysto ku tiiqsado noloshaha maalmaha kooban ee Ilaahay siiyay waa inta markaas bedelada aan sameeyay dadaalkayga waxa ka soo baxa markasta waajib ma inaad aragtiin sometimes waxaan xaq u leeyahay inaan isbedelka aan dadaalkiisii bixiyay iyo wanaaga iyo rafaadkaan u maray shay inaan helo anigu isku akhriyo anigu isku raalaado anigu ku doogsado anaa xaq leh marka isku day mar walba inay dadku wada arkaan natiijadaadu dadaashay muhiim ma I know way hari doontaa natiijada waxaad u dadaashay laakiin inaad faraxdaa ka muhiimsan marka ninkii wuxuu ku yiri kelmaduu ku yiri ninkii leerkii ikhtiraacaya ku sheegaya wariyaashu siba u dhigaan saxaafada marka la qiimeynayo sida u dhigaan erayada sida u dhigaan ku sheegana baladna miisaankaaga saar wuxuu ku yiri waxaad ku kadeedantay sidoo erayga u dhigaya hadda dhuux erayada waxaad ku kadeedantay soo saaridda light iftiima oo adduunka kii ugu horeeyay 3,000 oo jeer waraaq wax ka akhriya 3,000 oo jeer ayaad ku fashilantay soo saaridda light walina waad soo taagan tahay maxaad iskaga din weyday why don't you give it up tag wuxuu ugu jawaabay adu waa inaad awood u yeelataa fikirkaad iska haysato inaad bedesho nuurka iyo jawgaad ku jirto inaad bedesho aan qofkan kula hadlaya sidoo ku haysta inaad bedesho muhiim ah waliba taa inaad ku sii eegtaa laakiin baajas aragtidaad naftaada ka haysood bedeshay waxay khasab ka dhigaysaa in qofka kale aragtidu ka haysto bedel ay wuxuu ku yiri ariiro cajiib ugu jawaab wuxuu ku yiri ya waad ku fashilantay naadirkayga daacayda ma fashilmay anu waran waxa ku guuleystay sidoo hadlay isaguna waxa ku guuleystay 3,000 oo nooc inaan ogaado inaan leerka lagu soo saari karin marka anu waxa ku guuleystay ogaanshaha 3,000 oo hab oo leer lagu soo saari karin marka waa guuleystay ninka adduunka ku soo kordhiyay 3,000 oo nooc oo leer u shidnin winner markaas wariyay qaslu yiri wallahi waa runta ha hay uga dhaqaaq that's what we need mar walba uma baahnin inaan isku qiimeeyno qofkani sidoo inoo shaqaysnaad
isna waa matrix waxa uu qofku ku leeyahay waxa mar walba qiimeyntiisa tixgelintiisa mudnaanta in la siiyo mudani waa sidaad isku aragto naftaada aan sidaas isku aragto ayay khasab ku tahay dadka kale inay isku arkaan alright isbedelka waxa ka hor jooga marka cabsi aad isbedelka ka qabto cabsi aad ka qabto inaad fashilanto aan waxaan ku sheegaya caawa inaad isbedeshay waxay u baahan tahay a lot of things waxyaabo tira beelay u baahan tahay laakiin waxyaabo taye badan bay u baahan tahay hadday doonaan tira yiraahdaan taye badan marka cabsida ugu dambaysa waxa weeyaan fear of criticism inaad ka baqdo inaad dadku ku dhaliilaan oo tiraahun niyo cabdi markaan wax qabtaba saaxiibsaan buu yidhaa niyo cabdi iga xun cabdi sideen u qanciya cabdi sideen naftayda ugu qanciya cabdi siduu waxaan qabanaya uga raali noqdaa gabadhan caashiyo aamine iyo xalwe iyo muumina siday igu farxaanay igu gulwadayaan hebel soco waxaan doonayaa everyone in life qof kastoo nolosha joogaaye waxaan doonayaa inuu ii raxleeyo ii boodboodo that's not the aim maaha ujeeddadu taa aduu jeedadaadu nooshahay waxa weeyaan xaqiijinta humuumtaada xaqiijinta iyo ka dhabsheega iyo helidda waxa halkan kuugu jira inaad gaadhood ididiilooyinka iyo rajooyinka iyo himilooyinka maskaxdaada ka dhex guuceeyay heliddeeda ayaa ah ujeeddada ugu weynaad adugu nooshahay soo ma marka haddii aanad ka korin isku qiimaynta indhaha dadka oo aad mar walba iska soo dhex daawato naftaydii oo tana aan ka soo dhex daawado naftii cabdi oo cabdi siduu ii arka aan idhaaho definitely waxaan sheegay aasaas iyo sees noloshaydu ay ku tisqaadi lahayd baan sheegay ha ka dhex daawan naftaada indhaha dadka kale dadku waxay ku yidhaahaani definitely maaha wax runa inta badan criticismkiiyo dhaliisha xagga dadka kaaga imanaysa qiimee oo adigu kala dooro oo kala shandhay oo kala miir qaarku anfacayaa jira waxaad qiimaysaa oo tixgelin iyo mudnaan siisaa dhaliisha kugu timiday adigu halkay kaaga timid qofkanay kaaga timiday backgroundkiisa iyo cv-giisa sidaa u yar eeg oo waxaad tidhaahdaa hebel horta dadaaladii iyo halganadu nolosha kaga jira ma ku guulays ha wallahi ma ku guulays hebel imse himiluu lahaaba u xaqiiqsamay intuu lahaaba u xaqiiqsaday wuxuu ku nool yahay noloshuu ku riyoon jiray markuu yara markaa ninkaas tixgelin buu mudan wuxuu mudan yahay in aan ka dhegaysto wuxuu leeyahay waayo isagu wuxuu gaadhay meeshuu rabay meeshan aan doonayo inaan gaadhuu gaadhay isagu therefore criticismkiisa positive aan ka dhiganay nacam dhaliishuu ii keenay waxaan leeyahay it's helping me markuu yidhaa maxamedow sidaa ka yardaa sidan samee thank you so much mahadsantahay taas waxaad u qaadataa taa oo kale inay ku sii riixaysay guushaad iyo xalkaad rabto iyo hankaagu xagguu taagan yahay iyo himiladaada iyo meeshaad ku riyootay inay kuu sii dhawaato kugu caawineen haddii qofkan ku dhaliilaya dib u yareeg hadduu yahay hebel iyo heblaayo isla rafatay heblaayo PhD ku haysata ka waranka hablaha kale iyo magaalada arrimaha jira heblaayo PhD iyo arrimo waaweyn iyo waxa ku leeyahay xirfad durugsan u leh iyo khibrad aad u fog u leh inay dadka kale faaqido guulahooga dadka kale fashligooga ka shaqeyso heblaayo heblaayo marka laga hadlayo dadka qaar sidaa u kala shaandhayso hebel waa sidan heblaayo waa sidan heblaayo sina ku fiicantahay heblaayo sina ku xuntahay hebel cabdi maxay ninkan waa sidaa marka laga sheekaynayo qof profession ku isaga marka la eegana haddii aan weydiiyo maxamed cumar ismaan waa kuma war waa sida maxadka horumarinta aadamaha isagaa aasaasay isagaa tababaran nololeed ka waa motivational speaker ama dhiirigeliyo weyn oo adiguna dee aan waxaan ahay cabdi muumin qawrax ama aan waxaan ahay dee caasho faaraxba qaxwe oo intaas kuma dhaafin karis hawdigii ninkan sharaxayay background caadi naga sii 30 maydhid oo dhan baad ka sheekeynaysay adiguna inaad 30 marka lagu jiiday in leeg naftaada ka warantay inaad dadka noocay oo kala iyagu naftoodii la hadhay ee hankoogii liito ee meel hoose ka fikira ee gulaha dadka kale had iyo jeer dhaliila ee dadka kale xagga yar xun ka yareega cabdi baa guursaday inta gabadh ka weyn guursaday look at the negative waxa ku dhex jiraan adduunkan waxaad arkaysaa waxaad fasiranaysaa indhaagiyo naftaada buuxinaya ama ku qanacaysaa meedka niyad jabaysaa simple waa waxan kugu dhex jira adiga abiyada kugu jirta baan ku idhi reflection keegiyo humaagii soo celisay weeyaan adduunyada adigu arkaysaa therefore hebel iyo heblaayo ku takhasusay xagga xunun inay dadka ka eegaan gulahay qofka guuraysta dhinaca xununkaaga dad u diyaar galowdo inaad dhaliishay ku leeyihiin dhagaysato waxaan waa inaad guulaysanay
iska dhaga xidh aslan herin nigaag dhow khayr Allah ku siiyo kelmad fiican baad aniga iyo dadka guusha jecel noo faa'iideysay marka dadka qaar ka sheekeeyaan ay hawlo adiga aan ku munaasib ahayn doode meeqaamkaad rajaynaysiin iskarwaaqsiga nafeed iyo hankaaga ogaanshihiisa hawlo dhaawacay markay kula yimaadaan absalaanada taa waa khayr Allah ka siiyo haay buudha war maxamed saaxiibaad iska daysid sidan sidan ma fiicne haay waa niyada waa la sii dhaafaya then some of the people dadka qaar uma qalmaan inaad dhegaysato xaafadeydii baan tegayaa meelahan dhow weeyaan ama iga yar dheerto 30 minute in loo socday ii jirtaa xagganaan ka baxay xaafadaan sii tegayaa ay meel fadhidaan arkay markaasay igu ciyaan wah markaasaan idhi dhagax baan qaato waxaan siri maxay kuugu ciyaan waan ku tuuray way igu ciyaan way ii babanaynayaan dhagaxaanta saacad weyn baan shiiday markii dambe iga aamuseen waan dhaafay kuwa kaloo kooxo meesha fadhidaan haddana ishiidnay wah bay yidhahdeen dhagax haddaan aygii qayliyaba dhagax ku tuuro 30 milyan xaafadda ku tegi lahay misay ku qaadanaysaa 5 saacadood ma haddana afarta galabnimo ka baxo afarta habeenimo tegaya soo ma some of the people are like that dadka qaar uma qalmaan in hadallada iyo waxna kugu soo turtuurayaan iyo maagidan iyo ereyadan iyo inay qiimahaaga lidiyaan inay naftaada xaqduudsiyaan inay waxa tahay ka marqaad kici waayaan dadka sidaayoo kala uma baahnid inaad ku turtuurto dhagax waxay kaliya ka masquulinayaan ka ridayaan waqtiga aad meesha doonayso ku gaari lahayd إلا واحد كو أدو حتى شخص بلاني قرشة وط استراتيجية تخطيط بدك أتكون قاعد يسمى إيش هذا ربط سما هذا سو سما وركاسة مرة مركا ده هذا هاي إن هذه ميلاد كجون قاعد مدة سنة لا أوكي كودا ليلا بعد ساعة دي شو أتكور أترى هذا والله سيدا ما أنا سنة أنا هاي أو نفط هذه قفل بكو no waxaa isbedel keenay hor joogo waxa kamid ah inaan mar walba ka baqno criticism iyo daliil qof dadka kale inooga timaado waan ka balaaranahay naftaada iyo ruuxdaadu way ka weyn tahay waad ka balaarantood ka meeqaan sareysaa ma geydid inaad qof aragtidu ka haysto isku qiimeyso maaha waxa tirsamaya ee loo baahan yahay nolosha wax ka taraya ee noloshaada ama ka farxinaya ama niyad jabinaya ama ididila ku gelinaya ama ku ididila tiraya maaha waxa qofki ka aaminsan whatever he is or whoever she is tay doonta adama ku doona ahaado waxa tirsamaya mudnaanta mudan ee tixgelin la siiyay waajib tahay waxa weeyaan sida aad ugu isbaaragto asaas baaragto qurux badan foolxumo foolxunta dadka qaar waxay aaminsan yihiin in shaarka guushu inuu shaarka guushu ka weyn yahay oo shaarka guusha iskuma quudaan oo xiran dadka lacagleeyda aan bal loogu talagalay dadka maxay danay madaxda dhasho ma loogu talagalay أنا حافظ وحنا كسوتشيدا ده حافظ سيدي ده وحين الدلاد هوسينتي لانجا بان كسوتشيدا يلا وحاسد دتك قارسكو حنيبات هنا أقول درس دياشو ويفصحين نيتودا ويفصحين هنكوغا ويفصحين أودها إلهي سيجي سيدي ربين بيقول استاجني ها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بإله كوري ها يا الله ما لا ترين كرا أودها النصيصي لكن أنتي كران كيجا أودها النصيصي والاستعمال دونا يا الله waan kuugu adeegi doonaa diintaada waan ugu adeegi doonaa waxaan kaga adduunka waan kaga shaqaysan doonaa fi aakhiraba inaan isticmaalno awoodayada ya allah hadana baray alxamdulillah hadaba gabagabiyo gunaanay ma rabtaa inaad isbedesho ma rabtaa in dhaqaalahaaga aad bedesho ma rabtaa martabada bulshada kaga jirta inaad bedesho ma rabtaa inaad afkaartaada bedesho ma rabtaa inaad ididilooyinka iyo rajooyinkaaga bedesho ma rabtaa in sidaad naftaada u aragtay aad bedesho ma rabtaa in mucaamilka iyo dadka xiriirkaad la leedahay aad bedesho ma rabtaa nolol ka samo iyo sareeda badantaad ku jirto ma rabtaa nolol ka raje iyo didilo wacantaad rabto ma rabtaa nolol ka dhadhan macaan oo ka jacayl badan oo ka tixgelin iyo ixtiraam badan ka mudnaan iyo meeqaan sarraysa noloshaad ku jirto adaa isku haya ka kac markaa dhaska ككع بورك ككع شيفك ككع فردقة ككع راحة stand up for your own self ويستاق نفط هذا وحولق النفط هذا وحولق الهكاغة هبين نفط هذا ككع بوركو ككع دسكو ككع شيفك يده هوسين تنو ككور راعد يلا رفيقي داد كان ليتا ككور اسكو قيمين داد كان ان وحبه فانسنين داد كان اسكو افكاري اسكو مبادئ متين باش هاد يكسن يسيب لي يابين لين حاجه
hebel uu riyooda waa sida qisooyinka ugu badan ee adduunka ku wareerinaya la yaabso waxa kamid ah every successful man and every successful woman waa la yaabi jiray on their first stage why they simply wax kale ma hay way waxay dadkan la yaabaya iyo isagiisan ama iyadiisan uu halgamaysa hankeegu isku fikriyo isku meeqaanba ma way kala martabad aqli sareeyaan oo nina meel buu qabsaday meelade oo meeshuu qaniino ee uu qabsado in loo gooyo ma hayse kala kuma dhacdo nina meeshuu qabsado marka loo diiday laga niyad jabiyo la yiraahdo uma qalantid ayuu dhahaa wallahi warantii marka aqbalina inaad noqotiin qof liita iyo qarafaadhu laga tagay ha noqonina aan naftaada u kac hankaaga u hawlgal adduunyada adaa awoodi kara inaad dhigto meeshaad rabto wax alliyo waxaad doonaysa inaad heshaa inaad halkaa joogto ka dhaqaaqday u baahan yihiin ka kac dhaska ka kac boodhka ka kac liidashada ka kac naftaada si xun u aragga ka kac naftaada buunbuuninteeda ka kac naftaada xaqduusinteeda iyo heesinteeda sidaad tahay baad ku tahay qof muhiima halkaad joogtaad ku tahay qof qiimo leh noloshaad ku nooshahay you can make a change a big difference isbedel weyn baad ka samayn kartaa waad awoodaa oo waad leedahay kartidii aad ku bedeli lahayd awoodda noocaayana ilaahay baa kuugu deeqay oo waxay ka mid tahay awoodaha ilaahay yidhi wa in tacudduu nicmatallahi laa tuxsuuha maanta waxaynu ku soo koobaynaa cashirkeenna inuu qofku isbedel sameeyo haddaan overall idinka sii saddexdaa kala jooga inuu cabsi ka qabo isbedelka inuu ka qabo cabsi inuu fashilmo ku guuldaraysto iyo inuu ka cabsado qofku inay dadku dhaliilaan oo inay dadku mahadin saddexdaas baan sheegnay inaanay ku dhamaanin caqiido filan saddex shay inay ugu taageerayaan waa inaad rabto aaminsan tahay horta waxan inaad rabto waxan oo weliba dee rabitaan ma waan rabaaye oo fadhiya maaha rabitaan uu cunuu kuu go-ayo gaajo weyni kuu hayso ood fadhiyi kari lahayd joog iyo jiifba inuu kuu diido isbeddelkaad rabto inaad noloshaada ka gaadhaan iyo in aad doorato isbeddel nuuceeya doonaysa isbeddelka nuuceeya doonaysa inaad doorataana wuxuu go'aamin doonaa natiijadaad rabtay inaad heshaan nuucay doqon doonto change ka kac dhaska ka kac boodhka nolosha cusubna soo dhaweeya